xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta xaflad soo dhaweyna u sameeyay taageerayaal tiro badan oo sheegay inay ka soo digarogteen xisbiga talada haya ee kulmiye iyo haween iyagu sheegay inay iyaguna ka yimaadeen ururka haweenka qaranka ee Now. Munaasibadan oo ka qabsoontay magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka Saaxil ayaa ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Saaxil, odayaal, dhalinyaro iyo haween ka tirsan degmadaas. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan haweenka degmadaasi iyo odayaal iyo waxgarad kale, kuwaasi oo dhammaantood sheegay inay ku soo biireen xisbigan mucaaradka ee wadani, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan halka cadeynaa anagu inaan ku soo biirnay xisbiga wadani annaga ururkanaw oo ku soo digarogay xisbiga kulmiye oo u soo digarogay xisbiga wadani. waxaan leenahay waxaan ka salaaminaa waxaan ku soo digarogay dhammaan annagoo wax qabad la'aan ku dareemay degmada Mandera haddaan nahay ee gobolka Saaxil annagoo aan saldhigyadayadii ay aryuhu ku xaroodaan haddii dawladdeedii hoose ay tahay ay reerigu degan yihiin oo magaalo looma wareejiyey magaalo abdaalna la yidhaahdo naloo wareejiyey oo haddii naloo wareejiyey magaaladii abdaalna ay tuushashka ku meedhanayso annaguna aanaan dawo haysan, aanaan caafimaad haysan, aanaan dhakhtar haysan, aanaan wax alaaliya waxaanu haysanaa aanay jirin oo magaalo hoos tagtay. annaguna markii hore magaalada la hoos imanayay degmada ahayna degmada Mandera annagoo imikana aad tuulo hoos tagtay haddii degmada abdaal hoos tagno degmanimadeedii ay la wareegtay oo doonaynaan xorriyadeedii dib uga laabano xisbiga kulmiye aanu kula laabano xisbiga wadani oon cid allaaliya ciddii wax noo qabanaysa markay sidaa tahay annaguna waanu ku taageeray waxaanu ka tirsannahay xisbiga la yidhaaho wadani dhammaan imikana u digarogtay xisbiga wadani oo ku biiro taageeradiisa iyo la garab taagana ku wareejiyay kula wareegay xisbiga wadani intaa ka bacdi waxaa iyaguna hadallo soo dhaweynaya mahadnaq iskugu jira halkaasi ka soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Saaxil Cali Axmed Kooshin iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaas, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waanu mahadcelinaynaa maanta reer Mandera sida ay isu babaabuleen, sida ay yihiin, sida ay ugu talagaleen inay xisbiga ugu soo biiraan. waxaan leeyahay meel haddii la garan waayo waa laga guuraa, reerku wuu sahan tagaa, wuu guuraa. haddaad noo soo guurteen oo kulmiye garan waydeen waanu idin soo dhawaynaynaa gamcad furan. marka hore gebi ahaan ururka haweenka Now, waxgaradka, dhallinyarada, bulshada reer Mandera ee ka cabanaysa maamul xumada aad iyo aad ayaanu u soo dhawaynaynaa, waxaanu ku soo dhawaynaynaa gacmo furan. marka xigta idinka uun maaha cadaalad darrada, maamul xumada, musuqmaasuqa gebi ahaanba Somaliland way idinla qabtaa, waxaana loo baahan yahay isbeddel iyo isku xidhnaan iyo midnimo. taageerayaasha reer Mandera maaha ururkii Now ule odayaasheedii, dhallinyaradii, hablayo inamada iyo ururka Now waa ku soo biireen, waanu idin soo dhawaynaynaa. waxaan idin leenahay soo dhowaada aniguba kulmiye hortii yar uunbaa ka yimid. maalin walbana waa laga soo baxaya, barhina qaar baa ka soo baxaya, saa dambana qaar baa ka soo baxaya. wiig walba xisbiga wadani wuxuu xaflad u qabtaa cid ka soo baxday xisbiga talada haya ee kulmiye. run ahaantii xisbiga kulmiye waa xisbigii ugu awoodda badnaa Somaliland wakhtiyada dambaynu ku jirno ee ka jiray. maantana wuxuu marayaa halkii ugu hoosaysay, wuu dhow yeedhiyey. xisbiga kulmiye xisbiga talada haya ka soo digaroganaya taageerayaal tiro badan oo ku soo biiraya xisbiga wadani. waa Axmed Saciid Maxamed, telefishinka caalamiga ee Kalson TV, degmada Mandera ee gobolka Saaxil.